بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومركله برنامج كبع فكر جاجي مركله وحل يرادو gestational hypertension وديكر كودا عاوينينا markay uurka leedahay waxaan ogsoonayn oo aan hore ka soo sheekeynay dirsigii hore inay jirto wax la yiraahdo gestational diabetes oo macaan ku dhaca haweeneyda uurka leh dirsiga maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa gestational hypertension waa dhiikar ku dhaca haweeneyda markay uurka leedahay dhiikarkan wuxuu ku dhacaa wixii ka dambeeya wiiga 20aad wixii ka dambeeya wiiga 20aad yani ku dhawaad haweeneyda markay 4 bilood iyo wax la jira markay tahay ay ku dhacaan inta badan يعني marka aad cabirto dhiigaaga marka cabirto yani blood pressure-gaaga marka la cabiro yani waa marka uu ka bato 100 iyo tirada 140 tirada sare 140 tirada hoosena 90 tirada hore 140 tirada sare xagga sare ku taala 140 marka ka badato waxa la yiraahdaa tirada sare magaceeda waxa la yiraahdaa systolic blood pressure baa la yiraahdaa waa wadnaha marka uu magarasa contraction sameynayo uu dhiiga u qaabinayo jirka intiisa kale tirada hoosena waxa la yiraahdaa diastolic blood pressure ayaa la yiraahdaa waa wadnaha markuu relax markuu nasanayo weeyaan hadda markay ka badato tirada sare 140 tirada hoosena 90 ka badato ayaa la yiraahdaa qofkani waxa ku dhacay ma waxa haya waxa la yiraahdaa dhiikar hadaba dhiikarka marka uu xumaado waxa uu gudbaa wax la yiraahdo darajada labaad wax la yiraahdo preeclampsia waa nooc khatar ah kamid ah dhiikarka taasoo waxyeelo gaarsiin karaysa yani keliyahaaga beerkaaga sanbabada indhaha iyo meelo kamid ah jirka kamid ah waxyeelo gaarsiin karto hadda taa markay soo xumaato preeclampsia markay ay sii xumaato wuxuu u sii gudbayaa yani xaaladii hore kasii khatarsan dhiikarkaaga oo la yiraahdo eclampsia waa nooca labaad marka uu xumaado dhiikarka marka uu xumaado yani waa marka qofka waxa ku dhacaya haweeneyda uurka waxa ku dhacaya inuu qalal baa ku dhacaya qalal inuu qofkii dee uu jareeyo qalal ayaa ku dhacaya iyo inuu suuxo ayaa ku dhacaya haddaba sidee baa looga hortegi karayaa sidee baa loola tacaali karayaa loona badbaadin karayaa naftaada iyo nafta canuga carooshaada ku jira see loo badbaadin karayaa haddaba mar walba waxaa u baahan tahay sidaan hore soo sheegnay haweeneyda uurkala daryeel gaar ah daryeelka gaarka waxaa ka mid ah inay mar walba ay la socoto mar waliba inay ogaato dhiikarkeeda waa in la socoto dhiigeeda waa inay cabirtaa mar walba hadda mar hadduu dhiikar kugu dhaco nooca labaad uu sii xumaado preeclampsia ama eclampsia kugu dhaco waxaa la eegayaa haweeneyda maxaa lagu badbaadin karayaa inta badan yani waxaa priority xoogga la saaraya ee la hormarinayaa haweeneyda uurka leh marka hore in ayada la badbaadiyo haddaba haddii kugu dhaco haddii marka aad haysato yani preeclampsia marka aad haysato waxaa inta badan maadaama canuga caloosha ku jiro anytime xilli walba loo baahdo ayaa lasoo saari karaya ee khatar jirto sidaa daraaddeed inta badan waxaa la siiyaa wax la yiraahdo corticosteroid ama dexamethasone ayaa la siiyaa si loo koriyo yani sanbabadii si loo koriyo sababto anytime ba banaanka loo soo saari karaya canuga caloosha ku jira dabeeto sidoo kale waxay u baahan tahay haweeneyda in emergency magarasa dee yani kaniiniyada loogu talagale in la siiyo magarasa dee weliba si magarasa dee ayado erbad ahaan loo siiyo yani kaniinida waxaa kamid ah labetalol baa kamid ah waxaa kamid ah hythrolazine baa kamid ah haweeneyda markii preeclampsia nooca labaad iyo dhiikarka markuu xumaado yani nooca labaad markuu khatar siiyaa weliba waxay u baahan tahay haweeneyda inta udhexaysa 48 saacadood ilaa 72 saacadood baa loo baahan yahay in intaa looga soo saaro canuga ama laga fooliyo ama laga soo saaro lagu qalo haddaba darajada saddexaad markay u gudubto dhiikarka uu xumaado eclampsia inta badan waxaa la siiyaa oo haweeneyda waxaa ku dhacaya qalal baa ku dhacaya yani waxaa laga yaabaa inay suuxdo ayaa laga yaabaa marka koowaad waxaa la siiyaa wax la yiraahdo magnesium sulfate
magnesium sulfate ayaa la siiyaa si qalalka magarasa marka loola tacaalo qalalka loo joojiyo ama qalalka loo yareeyo dabeeto marka qalalka caadi haweeneyda kusoo noqoto si degdeg ah ayaa waxaa looga saaraya ama loogu foolinayaa ama waxaa lagu qalaya haweeneydii magarasa si canuga looga saaro haweeneyda loo badbaadiyo canuga hadduu doono 25 week buu noqon karaya 30 week buu noqon karaya 35 week buu noqon karaya intii la doono inaad dibadda loo soo saaraya haddaba qataraha uu geysan karo sida arkaysaan waxaa ka mid ah canugii xilligii loogu talagalay ma xilli ka horreeyay inuu dibadda usoo baxo waxaa laga yaabaa canugii inuu dhinto waxaa laga yaabaa in magarasada placenta ama mandheerta magarasada inay gidaarka haysato ee kasoo fuqdo dabeetana halkaa waxaa ku dhacda magarasada dhiigbax aad u badan ee ku dhacda haweeneydii iyo canugii caloosha ku jira intaba koritaankiisa inay wax ka qaldamaan baa dhici karta haddaba sidoo kale waxaa loo baahan yahay in lala socdo baybiga ama canuga caloosha ku jiro ayadoo la isticmaalayo waxa la yidhaha CTG waa mashiin haweeneyda lagu xirayo waxaa lala soconayaa garaaca wadnaha canuga caloosha ku jira iyo dhaqdhaqaaqiisa sidoo kale waxaa loo baahan yahay scan in la saaro si loo sameeyo waxa la yidhahdo biophysical profile test la yidhaahdo ayadoo lala soconayo wadnaha canuga lala soconayo dhaqdhaqaaqiisa lala soconayo murqiisa lala soconayo qaabka u neefsanayo lala soconayo sidoo kale biyaha ama dareeraha ku hareeraysa amniotic fluid la yidhaahdona ayadoo lala soconayo halka ayaa istaagi doona darsiga insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu